مشرح مدحوينها اسبايسيga mucaaradka ee jamhuuriyadda Facebook Khalid Cabdi Bulshaawi ayaa markii ugu horeysay wax udhalila baan dusha uga tuuray waxa uu ku tilmaamay xukuumad garbaha lagu sido oo garwadan ka yahay Maxamed Fantasticaasi oo sheegtay buuri sida hadalka u dhigay inuu maamulo isla markaantaasina madaxweynaha u yahay umiidaha ku buhoobay barkulanada Facebook isagoo amrahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaad wareego warhayseen ama aad ka warqabteen nin isagoo hore isugu magacaabay inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Facebook waayaan daro waanu dhaleeynaa waanu ka soo horjeednaa in ummad ama dad ama bulsho meel ku buhoobay laga been sheego aragtidoodii iyo hogaamintoodii mustaqbal ninka la yiraahdo Maxamed Fantastic iyo xukuumadda aan meel la garanaynin meel ay ku salaysan tahay iyo meel ay ka shaqeyso iyo cid ay u talisaba waanu ka soo horjeednaa ما ها قفكو مركو يستورنا يانو يراهدو وان استورتay waxa loo baahan yahay in la doorto waxa loo baahan yahay gudidii diiwaan gelinta ama gudidii doorashooyinku inay qiimeeyaan oo bulshada ay doortaan bulshada markay doortaan ee loo soo gudbiyo ayuun baa la oran karaa madaxweynuhu ama xisbigaasi uu soo baxay laakiin isbaahaysiga mucaaradka jamhuuriyadda Facebook uu ka soo horjeedaa xukuumaddaas aan runta ahayn saxdana ahayn kana been sheegtay in ummad ay matali karto geesta kalena masharaxa madaxweynaha isbaahaysiga mucaaradka ee Facebook Khalid Cabdi Bulshaawi waxa uu banaanka soo dhigay cadeymo muujinaya madaxweyne ku sheegay buuri bulshada ama qoomiyadaha Facebook Maxamed Fantastic sidoo hadalka u dhigay aanay taageersaneen isla markaantaasina aanay taabacsaneen bulshada ku wada xidhiidha jamhuuriyadda Facebook waxaana uu ku cadeeyay sidan halkan aad arkaysaa waxaan ku hayaa in ka badan 22,000 oo xubnood oo kamid ah dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Facebook dadkaas badidoodu waxay ka soo horjeesteen xukuumadda ismagacawday iyo madaxweynaha aan doorashada galin ee issharaxay ama isagu istoortay gabagabadii gunaanadkiina masharaxa madaxweynaha isbaahaysiga jamhuuriyadda Facebook waxa uu digniino adag u diray madaxweynaha uu sheegay inaanu dawladdiisu meel lama ka dhisnayn isla markaantaasina aanay metelin qoomiyadaha ku buhoobay Facebook waxaana uu sheegay in haddii taasi ay ka waantoobi waayeen ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan isla markaantaasina ay la tiigsan doonaan maxkamadaha amurahan ku shaqada leh sida uu hadalka u dhigay